samadiido dabina ku dhigan ugu dili doono ma doonayaan inaynu dawlad ahaano ma doonayaan ayaan doonin heestas ma nool dhigi habartay aabahay waxay iskuul ii keenan inaanan heesinaa idin baad nin gabartiisa faanaayo bunayati maqaamuha dhahay aan u haysanay inay sax tahay oo ay diinta waafaqsan tahay hantiyay macaan waa midaan hoy laga oranay helayo dadkan waa iska heesayaan mugtahay heesta inta laga keenay ma dhahayaan annaga markii aan korayna hadda xamaasadana qaadayo markii heesaha wadaniga ah iyo gubaabada markii la qaadayo qof kasta meeshiisa ka jira racooda heesahan meeshaan la iskama soo gaarin oo waqti adaga ku soo baxay markii aan wax baranayno iskuulaadka aan dhiganayn sideedaba fanka iyo Soomaalida cadawga la isaga dhigo waa iska hor keenay qofka heesaayo ama qofka gubaabada ka shaqeynaayo oo hadallada fiican sheegayo xamaasadda ku dhisan tahay nin qof aan fiicnayna lagu tilmaami jiray saas darteed fanaaniinta iyo abwaanada iyo wax badan ayaa lagu riixay waa xasuustaa markii aan iskoolka dhiganayna fasalka 7aad anagoo ah heesta uu kuwaad la dhigay macna heesa la dhigay heestii Afrika ay hurudooy waxa la saaray sabuurada macallin Allah u naxariistay sanadii bar 2 sano ku dhawaad ka hor dhintay sidoo dhijir sidoo xirsi turaab macna sidoo wuxuu saaray Afrika ay hurudooy haliyadaadi hurudooy marka ciwaanka markii hees laga dhigay anaga waxaan ku nugula abaabiyay mugtahay inay heesuhu iyo fanku uusan fiicneen nugula abaabinay mugtahay cadawga waan dagaal naga dhixay macna dagaal naga dhixay macallinkii fartan taagta kursiga dambe fadhiya macallin ma aha habartay aabahay waxay iskuul ii keenan inaanan heesinaa idin baad macallinka wuxuu istaag halkaas soo istaaga waa taqaaran markii laga hadlaayo Soomaaliga anaga tii Carabiga luqadda Carabiga wax ku bari jirnay mugta Soomaaliga maalmaha arbacado kala maartay gadaal uga yaala macna kaba dhigo luqadda Soomaaliga iyo luqadda alcaabta isku xigta macna saas darteed dad badan oo xilliyadan wax bartay Soomaaliga iyo gabayga iyo waxa soo ku adag yihiin marka maxaan ku soo istaago hore u soo fadhiisay arbaca xiisiin ugu dambeeyay wuxuu dhawarnay oo dhigis heesta arbaca soo socota adaa qaadayo heesta Afrika ay hurudooy adaa qaadayo daqaadiisa ma lagu ciqaaba ardayatay mugta ماشي 4 كلا لقى بوقين قبصد واخري سيدي ورا محفظين ماشي سو استاغ افريكا هردو هل horta wuxuu yiri hees waa dhageysay waa soo dhageysay Allah u naxariistay Khadiijo magoola qaadisay mugta neefti kooda bijidi waaya abariqe waa dhageysay waa jidi waaya waa iska soo dhaaf naskiya xifdi marka naski meesha ku yaal marag waa ma Afrika hurdu hadda waa hurdu cadu ku hurdu doqon baa hawasan waliga 3 sano wixiyaan ilaa hadda waxa 7 ahay ilaa hadda waxa waa daldalay waa ku qasbanaya mugta joos kale malihii iskuulka hees kale waa nagu dhigo la dhaho ma doonayaan inaynu dawlad ahaano ma doonayaan ayaan doonin heestas ma nool dhigi labada hees ma ka xasuusta iskuulka nooga dhigo inta kala gabayada iyo waxa aan nool dhigi jiray anagoo sidii ah oo col ah fanka aan horta dawladnimadii soo galnay macnaha waxaan ku keenay caawa meesha la taagan yahay iyo meesha la soo maray mugta anagoo fanki col ah horta dawladnimada soo galnay dalaq waa taqaanaan meeshan shaqada ka bilaabay horta hees la dhaho heesta toogashada ma aragtay samadiido dabina ku dhigan lagu dili doonay oo la saara maanta aan wax tooganin mar dambe dad ka cawdo muwaadiniin ah waska laga dhaafan dhahan 2012 yar aan isku xaafad aan ahayn intii wado wuxuu geeyay adaliyadan iyo waxaan ma jirin meel liida si fuda fareed iyo markaas meel dhaho waxa lisay meesh ku xigtay si fud inta ugu dhagan lisay waa markii ugu horreysay qof caadi ah heesay arkort wasaas ifiirahay dhalinyaradu wala isku mid heesala dalbad aniga ugu timid hees dalbaaleed waa fiirfiirne war hees dalbo adiga kor fiir nin hadba nool yahay ayaa dhaxaysa arka mar awas kaban waxa iri sidaadaba samadiido dabina ku dhigana ay qaadayaan waana meel oo fan ah mugta heesti toogashada qaadayaan markii heesta toogashada ma faahsan samadiido ku celi oo leeyahay musiigo dhaqsina ku celi samadiido dabina ku dhigan lagu dili doono wa ku celi markii dad mid kale soo horta heesta ma faahsantahay heesta toogashada waa oo dhageebkiisu qaato wala kala tagi macna la meesha ma jirtay mugta markii dambe dad badan ay la taliyaan waxa la yiri heesta iyo hadda waa maqan yahay wasiir saaxiibkeeno ajitaah qaasin la yiraahdo waa nala talshay waxay dhaheen adiga marka buuqa iyo problem kugu furan yahay heesaha waxay dejiyaan iyo problemka dejiyaan ina heesta dhageysataa oo heesta way u dhah bas adiga heesii oo maaragtay jaceelkii maaragtay hadda horta adeer xal weeshta heestu qaaday maaragtay ayaa hadda xogaa u bagay kuwa kala saari waa kuwa jaceelkii waxa inta dhageysan maayo muusikada iyo warkii isku qasbay waa fahmi way kuwa xogaa marka oo gubaabada oo ciidamada iyo waxaas
aan dhegeysigooda bilaabo kuwii aan dhegeysigooda bilaabo waa dhegeystay wuxuu dhahay mataqaanaa haddaa heesta dhegeysata buuqa kaa dhuma u dhahay mugta saasaan isku ogeyn kuwa marka xoogaa waxaan qabtay ciidanka iyo gubaabada iyo wadaniyadda iyo ka shaqeynaya kuwaasaan xoogaa dhegeystay haddaa qaadid waxaa way fiican yihiin dheheen haddaa qaado xoogaa waxaa kaa degaya problemka waa qaaday ayaamihii koowaad waa fiicnay markaan qaadaba heesta waa iga degaya problemka laakiin mar dambe oo ninka la sheekaysta wuxuu dhahay war heesta problemka ku haysta heesta markaa dejinaysa codkaaga waxaa ka xun problemka ku haysta u dhahay macnaha yaa marka hadda aadaan ugu faraxsanahay in maanta dhalinyarada soo gelayso dadka yacni gabayga iyo gubaabada iyo heesaha waxyaabaha dadka dareenkooda lagu soo dhaweeyey ka mid ah waqtigaasna waqtigay ahayd oo in nashiido nin gabartiisa faanaayo bunayati maqaamuha dhahay aan u haysanay inay sax tahay oo ay diinta waafaqsan tahay in qofka hantidaadu waa hodan kii heesii halkaan laga qaadayay wadaniyadda ahni aan u haysano inuu waxaan ka shaqeeyahay waqtigaas waa la soo joogay haddana waa la joogaa qofka Soomaaliga ah oo wacyigiisa nool yahay oo joogi oo soo jeedi wadaniyadda iyo gubaabada qayb weyn ay ka yihiin horseed hortiina lagu mahadcelinaa taliyaha iyo saraakiisha halkaan joogto horseed iyo xawadegan iyo gruubka kale halkaan ka heesay waa mahadsan yihiin runtii qofka bini aadanka ah in la gubaabiyo oo wax loo sheego aad ay muhiim u tahay u baahan yahay marka halkaasna waa laga yimid waagii aan dheeynay war hees annaga waalidkeena ma soo dirin iyo hadda oo ay macnaha ramsi la isku garto wadaniyadda iyo waxaa la yiraahdaa dareenka iyo qofka lagu ogaado hadday tahay joogtana waa joognay mugta marka mar kale iyo mar saddexaad aadan waxa ugu mahadcelinaa kooxda horseed iyo fanaaniinta kale waxa degan iyo gruubkooda ay kamid yihiin waa ku faraxsanahay runtii caawa waana gubaabiseen waana qaadana gubaabadiina aada u mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato gubaabadana hal qaato heesaha gubaabada leh hadda kuwa jacaylo hadda adeer xalweyste heestiisa aan ka bilaabayna bicil anigu faham way marka hore mugta tan aan ka bilaaba shamso adeer daraada dhowr loo mar lagu celiyo xogaa ka fahmo umaleena kuwa gubaabada hal qaado hal yeelo ana shidiga nooga fiican iyaga kuwa naga ah